kulankan oo ay soo agaasimeen odayaasha dhaqanka uu hogaaminayay Suldaan Cabdinaasir Jaamac Said isla markaana ahaa mid lagu sagootinayay gudoomiyaha cusub ee degmada Hobyo Ismaaciil Axmed Cabdille ayaa maanta ka qabsoomay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. kulankan oo intiisa badan ahaa mid looga hadlayay xoojinta wada shaqaynta bulshada iyo maamulka si looga gudbo caqabadaha hortaagan sare u qaadista horumarinta degmada Hobyo ayaa waxa uu horreyn ka hadlay suldaanka guud ee beesha Saacad Suldaan Cabdinaasir Jaamac Said oo isagu dardaaran ku aadan shaqada adag ee sugaysa maamulka cusub ee degmada Hobyo kulanka ka soo jeediyay. saakay waxaan inaan ku sagootino kuuna ducayno di alla idmo waxaan oran lahaa war badan ma jiro xoogaal wadanka waa ka tahay oo nin ka maqnaa ma ahid inkastoo laga yaabo inaadan ayaamaha dambe aadan ku marin wadanka jiidaal iyo abaar baa ka jira biyo la'aan meelo badan ay ka jirta caafimaad darro meelo badan ay ka jirta oo degmadaas maartay ay xukunto Hobyo oo adigu aan madaxdeeda tahay waxaan ku wada darmeynaa laba arrimood arrinta humanitarianka oo hadda aan ka sheekay caafimaad iyo biyo iyo haddii alla ku idmahayo wixii la hadmaala oo dadku bulshada u baahan tahay asaasiga ay waxbarashada ina u kulgashay waxa ka qaban kartid ka qabatid caalamka iyo hay'adaha iyo maartay dowladana la kaashatid qodobka labaadna waxa weeye ina dadkii madaxda oo ahda u tagi doonta haddii alla idmo gogol isku keentid darabtid dadku inay wada shaqeeyaan adna wada shaqeeyo magaca guud oo degmada iyo kaanaga gaarkaaba kor u qaaday haddii alla idmo intaasna gudoomiye waa ku faraynaa gabagabadayda waa ku ducaynaynaa haddii ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku fududeeyo. qaar kamid ah waxgaradkii kulanka ka qayb galay ayaa iyaguna sheegay inay garab taagan yihiin maamulka magacaaban ee degmada Hobyo lana shaqayn doonaan. marka labaad magaalada Hobyo waa magaalo fac weyn istiraatiiji ah qadiimi ah maanta ugu wanaagsan tahay san islaana fursadii wax looga qaban lahaa sababtu maxay tahay siyaasad ahaan iyo dhaqan ahaanba dadku waxay ku midaysan yihiin insha Allah markaan wax qabadka Hobyo maamul bulshada qaybaheeda kala duwan ay ka raali tahay way maamulka hadda ka dhismay meesha waxaana daliil u ah maalintii la magacaabay ilaa hadda meel kasta waxaad shaanshadaha ka arkaysaan in aad iyo aad loo soo dhaweynayo daarankeenu waxa weeye barbarkay ka baxda waa bakayla galeen gudoomiyaha waa la shaqaynaynaa waxaan isku ognahay inaan dhammaanteen Hobyo say ku dhismi lahayd aan ka shaqayno gudoomiyahana waxaan rabnaa inuu sidii Hobyo u dhismi lahayd waa loo doortay uu ficilkana aad ugu dadaalo weynihii ku soo magacaabay xukuumaddiisa u mahad celinaynaa waxa laga sugayaa wixii dadka uga baahan tahay wixii ay ka dib dhacaan inaad ula soo laabataan diyaar kuuna laakiin waxa laga sugayaa Hobyo inay xorowdo oo ay ka xorowdo dad kala qoqoban ay ka xorowdo dib u dhicii hore u soo martay ay ka xorowdo maamul haddaan reer mudugnahay aqbaarta ku hayna meesha Hobyo leeyahay doorashadiisii waa u hambalyeynay waa ku hambalyeynayna soo dhawow baan ku leenahay kaabadaheeda dhaqaalaha mashaariicdeeda iyo nabadgelyadeeda iyo bulshada ku nool waad anfacdaaye inaad maartay dardar geliso oo nabadgelyada iyo horumarinta aad ku dadaasho oo dawlad goboleedka Galmudug Hobyo waa meesheeda caanka ahayd oo badweynta Hindiya cirifkeeda ku taalay oo dekada ku taala hadda wax walba ka degahayaan loona socdo hooyadiina ah inaad hormarisid oo taariikhda aan kugu qorno oo nabadgelyo iyo dhisme iyo mashaariic iyo dadkeeda oo federaaleysin aad u xaquuqsinto oo cadaalad aad u samayso sidaas aan ku dooranay gudoomiye waxaan maleynayaa Hobyo aanu 10 sano gudoomiye ka ahaa anoo godob ka qabin oo dhinacyada hadda isku haya mid kasta dulka raali ka yahana ka soo kacay marka Soomaalidu marka wax ku baamaada madaxuna ma jirtay la taliyaalka xun talooyinka waxaan rabaa in loo fiirsado nin kasta qorbu ku keenaya Soomaalida waxa la yiri magaalada hadda tagto lagu soo bedelo inta uu dhib badan oo dulka waxa wareeg taqaana ku baranaysa ragga wanaagsan mar dambe imaanayaan arrimahaas marka waxa la insha Allah taala hadda koor waxaan maleynaa maamul soo qaban laakiin way arag baa tahay
dawladda maanta dulkuuriya Soomaaliya ka dhisana waxay macnaha dulku tixgelinaysaa dhalinyarada because wadankeena iska leeyeen ayagu oo nacfigiisa iyo dhaqaalihiisa ay ku barbaarayaan la ogyahay laakiin odayaashu waa dhamaadeen ninkooda ku yahay wuxuu ku leeyahay waxa isii laakiin waxa qabo kuma leh insha Allah taala waxaan rajaynayaa aniguna wixii tala dib baan ka siinayaa hadda gudoomiyaha hadda bedelaysid asoo iyo ku yaaban oo dhacdaynaya anu tagay runtii markaas dulkuriyay dadkii ka soo horjeedana waxbaan u sheegay asana waxaan u sheegay waana haddana dulku saaxiib baan nahay runtii war ma harsana runtii waxaan rabaa inaan marka u horeysa iraahdo ducadii lagu duceeyay gudoomiyaha Allah ku aqbalo hora lagu soo dhaweeyay waa lagu sawootinayaa ducadii Allah ku aqbalo dardaarankuna wuxuu ku dhan yahay runtii dekada iyo shidaalka in la qodo dawladda Soomaaliya sameey karta laakiin dadaalkii iyo waxa laga rabaa iyo xiriirkii iyo shaqada qaabka lagu sameeyo inuu hadii la sameeyo oo u noqdo bridge u noqdo hadii la qadaro oo ku dadaalo anagoo garab baan kugu siinayna waxa laga fadhiyaa waxa weeye dadka midaysan iyo hobyo wax laga qabto insha Allah waxaan tahniyeynaa oo aan salaamaynaa oo gacan taagaynaa oo ducaynaynaa gudoomiyaha cusub iyo ku xigeenadiisa iyo xibnaha kale oo galbinayo geesaha uga jira gudoomiye soo dhawow gudoomiyaasha xukunto waxaan nahay hadii alla ku reebo hoos imaanaya wixii tala iyo wixii gudoomiyaashu gaar u leeyihiin iyo gogashooda waa noo dambaysaa hadda gogashan salaadiinta iyo hadii alla ku reeyahay odayaasha iyo nabadoonada baa dhigay waxaan ku leenahay soo dhawow midkii wax tara Allah ka dhigo waa lagu soo xulay ummad badan baa laga soo xulay oo laga soo doortay sida aan ku xulanay oo kugu qanacsanahay oo kugu soo dhaweynay oo kugu ducaynayno oo kugu dardaarmayno anaguna waxaan ballan qaadaynaa inaan kula shaqeyno ilaahayna kugu guuliyo waxaana tahay gudoomiyihii ugu nasiibka badnaa anigu inta ama aan maqlay ama aan joogay gudoomiyaal intii hobyo soo madhay عالم مهدي محمد با 3 jeer markuu dhisay dawladii uu madaxweynaha ka ahaa oo ku fashilmay midii afraad wixii waa dhisahaya Abdullaahi Xaaji baa su'aalo wuxuu yiri maxay kaga duwantaa kuwii hore waa ka duwantoo shacabkii aa bislaadu yiri anuguna waa dadkii aan kala bartay maanta waxa uu timid dad ilbaxay dalka asagoo inuu leeyahay ogaaday inay wax qabsan karaan ogaaday dekadii oo bilaaban gob oo shaqaynaysa baraarug oo shaqaynaysa ummadii oo hadii ku wada doonaysa dalkooda inay wax u qabtaan doonaya daacad u ah culmo awdiinkii muxuu saraakiishii sanataradii xildhibaanadii federaalka xildhibaanadii galmudug saraakiishii ciidamada dhaqankii salaadiintii dhalinyaradii gabdhihii kulli cod lagu midaysan yahay iyo fikir lagu midaysan yahay ku soo baxday ilaahay kugu guuleeyo ilaahay kugu gacan qabtaan kuleena waa kugu dardaarmaynaa waxaan kugu dardaarmaynaa hobyo xaqiraad badan iyo dib u dhac badan bay soo marday hobyo maantay uma baahna dib u dhac uma baahna reefis uma baahna qabyaalad uma baahna waxaan kugu dardaarmaynaa marka hore nin baa leeyahay falaar salka kaaga taagan iyo mid gacanta kaaga taagan mid laga siiba waraan fadhiistay marka hore mid salka hubi wax qabadka midnimada iyo soo dhaweynta iyo walaalnimada iyo xasiloonida iyo nabadda ka horeysa ayadaan ku dardaarmaynaa salaan kadib marka horeysa gudoomiyaha hambaliyo gudoomiyihii ugu saameynta badnaa oo waayahan dambe gudoomiyaasha markii la dooran halka gudoomiye ugu saameyn badnaa oo haday federaal tahay haday gobol tahay haday dhaqan tahay horta ugu saameynta badnaa baata mar labaad waxa tahay gudoomiyihii ugu aqoonta badnaa sida warbixinaha lagu hayo gudoomiyihii ugu aqoonta badnaa waxaan kaaga fadhinaa marka aqoontaadii iyo saameyntaadii laba qodob baan kaaga fadhinaa waxa lagu magacaabaa degme ayadoo gobol isku bedeshay waa lagu fadhiyaa waxa kaloo lagu fadhiyaa ayadoo dib u heshiisiin ballaaran oo dadka dhani ay kaga bedelaatay gudoomiyaashii hore ayadana waa lagaaga fadhiyaa waxa kaloo lagaaga fadhiyaa hobyo waa ogtahay inta degmo iyo inta dhul ku xeeran oo waxa weeye ayada hoos timaada oo ay ku noqon karto gobol sababihii ay gobolka ugu noqon lahayd
dalalkaas baahiyaha ka jirana ay mashaariicdooda u gaari lahayn ayadana waa lagaga fadhiyaa saakana annaguna waa ku sugootinaynaa saasay xiisad gaar u leedahay gudoomiyaha markaan laba dardaaran yaraan siinayaa horta kow dib u heshiisiin deegaankii inaad ka samaysid oo weliba inta caleemasaarka ka hor aad sii bilowdid caleemasaarkan waa isugu imaan insha allah gabagabadeeda dib u heshiisiinta kolley dee beelaha toddobada ah oo hadda uu is sheegay oo deegaanka degan toddobadaba waa isugu imaan doonaa meesha walaalaha reer xaaji Saleemaan si khaas odayaashii dhaqanka iyo salaadiintii waa wada hadalno caleemasaarka way imaanayaan waana insha Allah waxaan rajaynaynaa halkaas in dib u heshiisiinta ugu dambaysa ku soo gabagabayno taas waa midda labaad gudoomiyuhu dalkii federalism buu noqday maamul daadijin buu noqday meel walba madaxweyne gaar ah ayaa loo sameeyey degmo kasta degmadan waxaan ka rabnaa degmooyin kale inama noqoto oo maalmaha aad joogtay waqti yar gaaban inaad doorasho iyo dib u heshiisiin isugu dartid si mar labaad aad madaxweyne cusub u noqotid oo ku guulaysatid midka koowaad oo maanta marka dib u heshiisiin la sameeyo oo doorasho ah iyo midka labaadba insha Allah saasaan rajaynaynaa sababtoo amaal baa u helaysaaba mul isqabsi ka jiro gudoomiyaha degmada Hobyo Ismaan Axmed Cabdilla ayaa ka mahadceliyay kulanka ay soo agaasimeen odayaasha dhaqanka isagoo la xusay in maamulkiisu uu noqon doono mid ku adeega la tashiyada waxgaradka iyo bulshada jecel horumarka iyo wanaagga degmada Hobyo dadka ganacsatada ay waxay u baqayaan qof meel gelinaya lacagtiisa ma jiro meel kala qoqoban oo foodo ah oo kala xiran ma santa oo kala xiran qof dhaqaalihiisa gelinaya ma jiro dhaqaalaha si lagu helo waa ogtiina ma leeyahay marka cabsida noocaas ah haday meesha ka baxdo waxa dhan way imaanayaan dad baa leeyahay qof kasta oo Hobyo ku abtirsaday hadaa u shito ku leeyahay waa jeclaan guriga dhisto ina dhulka ka haysto marka gaar u siraacid cabsi kale oo ba ku jirta waana mid cabsida hadda ii sheegay waxaan rajaynayaa si wada jira sida maanta wada jirka ugu fadhino si wada jira uga baxna insha Allah ma sameyn doono wax aan aslu ogeyn waxaan bulshada qaybadeeda aan ka wareysan waana gaar noo ajaajab kala soo baxno ma sameyn doono insha Allah Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gaalkacyo